wardegdega saraakiil sirdoon Ethiopiana oo gudaha dalka soo galay iyo kulamo ay la leeyihiin odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed mid ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ayay odayaal dhaqan ka daadgureeyeen muxuu yahay ujeedka Ethiopia xilligan odayaasha dhaqanka ay ku doonayaan mase dhabba in odayaasha dhaqanka ay toos ula kulmi doonaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed saameyn intee leeg ayay ku yeelan doontaa isku duubnida dadkeena waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa warbixin arrintan la xiriirta fadlan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan meel fog aad gaarsiisaan kana dhiidhisaan dulmiga iyo faragelinta qaawan ee Ethiopia xilli dawladda federaalka Soomaaliya uu soo gabagabay qorshihii dalka looga saari lahaa guud ahaan ciidamada Ethiopia ka jooga gudaha dalka ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtay fadlan ku soo biir page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran haddii aan ku bilaabo degmada feerfeer ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa daqiiqadaha soo aadan si toos ah uga qabsoomi doona kulan foolkafool ah oo yeelan doonaan saraakiil sirdoon Ethiopian ah oo dhawaan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan yimid lana kulmay odayaasha dhaqanka halkaas ku dhaqan odayaashan ayaa matalaya beelaha dega gobolka Hiiraan waxaase maanta kulanka dhacaya ee ka dhacaya feerfeer uu yahay mid si toos ah saraakiisha Ethiopia ka socota ee sirdoonka odayaasha dhaqanka ula wadaagi doonaan casuumaad ay ka sidaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed kaas oo qorshihiisa ugu weyn ay tahay in odayaal dhaqan oo Soomaaliyeed uu kula kulmo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia Abiy ayaa qorsheynaya in odayaasha dhaqanka uu la kulmayo uu si toos ah ugu soo jeediyo indhaha beesha caalamka uu doonayo qorshihiisa ugu weyn ay tahay in ciidanka Ethiopia ka jooga Soomaaliya aan laga saarin odayaashaas ayuu Abiy Ahmed doonayaa in muuqaallo ay kaga hadlayaan saameynta ka dhalan karta haddii ciidamada Ethiopia laga saaro qayb ka mid ah gobolka Hiiraan uu doonayo inuu la wadaago wakiilada beesha caalamka si ciidamada Ethiopia ay ugu sii nagaadaan gudaha Soomaaliya Abiy ayaa la sheegay in maalmaha soo aadan odayaashan dhaqanka ee ka kala tagay degmooyinka gobolka Hiiraan uu kula kulmi doono magaalada Addis Ababa marka uu soo gabagabo kulanka daqiiqadaha soo aadan ka qabsoomi doona degmada feerfeer ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sidan oo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka Ethiopia waxa ay kulan ula qaateen odayaal dhaqan oo ka soo jeeda gobolka Gado waxaase ay diideen in ay si toos ah u aqbalaan damaca ay doonayeen sirdoonka Ethiopianka balse odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan miyay qaadan doonaan tallaabada ay qaateen odayaasha dhaqanka gobolka Gado ay kaga dhiidiyeen tallaabada iyo qorshaha agardaamada ku ah qarankeena ee sirdoonka Ethiopianka ay doonayaan waa su'aal dul hooganaysa odayaasha dhaqanka maanta kulanka kula leh feerfeer saraakiil ka socota sirdoonka dalka Ethiopia dawladda federaalka Soomaaliya wali war rasmi ah kama soo saarin dhaqdhaqaaqa Ethiopia ay ka wada gudaha dalka sirdoonkooda oo way ku doonayaan in odayaal dhaqan ay kula kulansiyaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxaase jirta in dawladda federaalka Soomaaliya uu heer gabagaba u mariyo qorshaha ciidamada Ethiopia looga saarayo gudaha dalkeena iyadoo oo dawladda federaalka qorshahan ay soo bilowday muddo fog oo haatan heer gabagaba ay marayaan isla markaana taageero dhinacyo badan ay ka heleen saaxiibada caalamka qorshahan sirdoonka Ethiopianka ay ka wadaan gudaha dalkeena waxa la tilmaamayaa in saameyn adag ay ka dhalan karto haddii aan loo midoobin si looga hortago qorshaha saraakiishan sirdoonka Ethiopia ay doonayaan inay ku kala dhantaalaan midnimada dadkeena aragtidaada qaybta hoose comment kaga soo dhiibo waad maasantiin la dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen waa idinkaga mahadcelinayaa nabadgelyo